deegaanka Basra halkaas oo lagu dilay 47 ka tirsan khawaarijta al-shabaab. hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo heshay xogta khawaarijta isku urursanaysa aagaas waan soo dhaweynaynaa dadaalka iyo baaqa ay soo saareen beesha caalamka. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وركا دوبيو ميدي برتينا يوتيوب كاي ام دوبيو وحانو كسو قد بنا waxyaabay ugu dambeeyay warar dalkeena hooyo ka jiray kuwa caalamka qodobadan idin wadnana waxa kamid ah dagaal dhowr jeer soo noqdo ka dhaca degmada si Albuur deegaan hoostaga oo Algorof lagu magacaabo khawaarijta iyo ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka oo dhawaan qabsaday oo halkaasi ku galeen warbixin la xiriirto xogihii ugu dambeeyay iyo idin soo gudbin doona iyo sidoo kalena dowladda Soomaaliya oo duqeymo cirka ah ee sameysay ciidamada saaxiibaha leh Soomaaliya duleedka ee magaalada Muqdisho ee Basro ku dhawaad konton oo halkaasi khawaarijta loogu dilay warbixin xiriirtana waa idin soo gudbin doonaa mahad salaad iyo wafdi hogaaminayo Addis Ababa gaaray kadib halkaasi kulamo oo kula qaadan doono dhigiisa ee sirdoonka Itoobiya maxay tahay socdaalkaasi warbixin xiriirtana waa idin haynaa qaybna waxa ka naqan doono maamulka Somaliland oo wili aanay xal ka gaarin khilaafka ee doorashada ee waqtigeeda loogu talagalay xilli Muuse Biixi Kordhin loo sameeyay maalmo qorre ka haysanta waqtigii loo qabtay in doorashada lagu qabto iyo mucaaradka oo soo dhaweeyay dadaalay beesha caalamka ka dhex wada warbixin xiriirto ayaa idin soo gudbin doonaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya oo qaramada midoobay kala hadashay qaabkii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka dhibaataysan ee deegaanadii dhawaan gacanta dawladda soo gashay u diyaar garoobana ayagoo dhameystiran anigoo Mustafa Maxamed Cali halkan kaaga soo jeediyo deegaanka Algorof oo duleedka magaalada wabxo ee gobolkaasi galgaduud gaar ahaan hoostaga degmada Albuur ayaa saaka ciidamada dawladda ee gaar ahaan kuwa xooga dalka ee Danam iyo sidoo kale dadka deegaanka ee wabxo dhawaan la wareegay weerar ku qaadeen waxaana deegaanka Algorof oo in muddo fariisan uu ahaa kooxda khawaarijta al-shabaab dagaal halkaasi ka dhacay ee laga qabsaday iyaduna saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee dagaalkaasi hogaaminaya sheegeen in dhowr horjoogayaal ah iyo maleeshiyaad fara badan oo dhowr ah lagu dilay halkaasi waxaana barbar socotay duqeymo dhanka cirka ah ee laga sameynayay halkaasi sida ay saraakiisha sheegeen waxaana gabalaabta gabaldhaci mar kale halkaasi weerarka rogaal cali soo qaaday kooxihii khawaarijta ee al-shabaab balse mar kale duqeyn iyo weliba jab xoogan ee la kulmeen deegaanka Algorof ee wabxo hoos tagta ayaa waxaa halkaasi dhowr iyo 10 sano ku sugnaa kooxda khawaarijta al-shabaab ayadoona isla markaasina maamulkaasi ee al-sunna wal jameeca ee gobolada dhexe ka arrimi jiray 2009 halkaasi weerar ay ku qaadeen ayadoona dagaal 3 maalmood hadda ka hor 2009 ay ku qabseen muddo hal sano ay joogeen waxaana iminka ay gacanta u soo gashay dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo dib xoreyn halkaasi ka wado dhanka kalena maamulka ama dawladda Soomaaliya ayaa ka warbixisay duqeyn ee hay'adda sirdoonka iyo saaxiibada caalamiga ah ka sameeyeen deegaanka Basro ee duleedka magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa labada shabeello waxaana sheegeen ku dhawaad konton isla markaasna halkaasi afayeenka wasaaradda amniga Abdikaamil Macalin Shukri ayaa wuxuu ka warbixinayaa howlgalka sida uu dhacay بسم الله الرحمن الرحيم howlgal qorshaysan oo iska kaashadeen ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa ka dhacay beerta Geeshaan ee deegaanka Basra halkaas oo lagu dilay 47 ka tirsan khawaarijta al-shabaab. hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo heshay xogta khawaarijta isku urursanaysa aagaas ayaa ku qaaday howlgalkaasi duqeynta ah. ciidanka qaranka ayaa horay khawaarijta al-shabaab ooga saaray deegaanada ku teedsan jiinka webiga ee Afgooye ilaa Balcad aagaasi oo ahaa halka ay ugu yeeri jireen ganacsatada iyo dadka Muqdisho si ay ugu baadaan
taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka Mahad Salaad iyo wafdi hogaaminayo ayaa Addis Ababa gaaray kadib markii halkaasi casuumaad uu ka helay dhigiisa ee dalkaasi Itoobiya, isla markaasina uu socdaal halkaasi muddo 2 maalin ah uu ku joogi doono sida xogaha aanu helnay. waxaana la sheegayaa in labada sirdoon ee dalka Itoobiya iyo kan Soomaaliya ay ka wada hadli doonaan isdhaafsiga xogaha ee la xiriira dhanka iyo weliba xasilinta labada dal. Mahad Salaad ayaa waxaa safarkaasi uu noqonayaa mid ka dambeeyay kadib markii dhowaan Muqdisho ku-xigeenka sirdoonka Itoobiya uu soo gaaray halkaasina kulamo ku qaateen ay ku wada heshiiyeen in labada dhinac isdhaafsadaan xogaha dhanka sugidda amniga. weli waxaa jirto is-afhamwaa u dhexeyso xukuumadda Biixi ee maamulka la magac baxay Somaliland iyo xubnaha kale ee xisbiyada mucaaradka. waxaana jirtay dhowaan in halkaasi muddo kordhinta marka muusintan loo sameyn dibadbaxyo ay ka dhaceen, isla markaasina ay sababtay in ciidamada maamulka Somaliland ay risaas ku dhuftaan dad shacab ah, taasi oo keentay in mar waliba ay sii kordho. balse waxaa gebi ahaanba hakaday dibadbaxyadii, balse waxaa jirtay in golaha guurtida ee maamulka Somaliland muddo 2 sano ah ay ugu dareen muuse, inkastoo oo waqtiga uu ka hirsan yahay maalmo oo 13 bishaan la rabo in doorashada ay dhacdo waqtigii loogu talagalay, balse 2 sano ay ka dhalanaysay guux xoogan. dhowaan ayay ahayd Biixi markuu qaadka fogaan aragga ee Zoom-ka kula hadlay beesha caalamka xubno ka tirsan, isla markaasina lagu taliyay in oo waqtiga doorashada ay qabto, isla markaasina wax waliba wada hadal lagu dhameeyo si aanay halkaasi dhig ugu daadanin. waxaana jirtay in dhanka kalena ee xubnaha mucaaradka ee wada hadallada halkaasi Biixi ay soo dhaweynayeen, balse waxaa jirtay in warar kale soo baxayeen oo rabo Muuse Biixi maamulka Somaliland madaxweynaheeda inuu kulan iskugu yeero xubnaha dhammaan ee xisbiyada ee mucaaradka, isla markaasina halkaasi oo ku wada hadlaan. baloweysan markii dambe xooga kale soo baxeen oo ku aadan in uu Muuse ka gaabiyey. waxaana jirto iminka arrin kale oo beesha caalamka dadaalo iyo wada hadallo dhowr ah ee ku soo celcelisay oo wado dhanka mucaaradka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dadaalada ee wado beesha caalamka. Cabdiraxmaan Cirro oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa arrimahaasi ka hadlay. waanu soo dhaweynaynaa dadaalka iyo baaqa ay soo saareen beesha caalamka, laakiin waxaa laga rabaa muuse inuu kaga dhabeeyo wixii uu ku yidhi ee uu ballan qaaday. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Faqiih iyo wasiiru dowlaha wasaaraddaasi ayaa kulan maanta Muqdisho kula qaatay xubno ka socda qaramada midoobay. isku dibadaha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaalida ayaa waxa ay kulan Muqdisho ku dhexmaray wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee Soomaaliya dib u heshiisiinta. kulankaasi waxaa lagu hadlay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka dhibaataysan ee deegaanada kooxda khawaarijta Al-Shabaab ee dhowaan lagala wareegay. waa tahay guud ahaana intaasi ayaan kusoo afmeerayaa qodobadani dhowrkeeda daawateen. aniga Mustafa Maxamed Cali halkan kaga soo jeedinaya barteena YouTube-ka Doobiye Media iyo M-Doobiye barta kale Facebook tan iyo mar kalena intaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.